campuskeeda Boston shahaadada labaad oo masterate-kana majorkaygana wuxuu ahaa arrimaha bulshada shahaadada labaad oo masterate-kana waxaan ka qaatay Springfield College ayana Boston campuskeeda Boston maadadeedna waxay ahayd arrimaha bulshada iyaduna oo maaragtay organizational leadership haddana waxaan diyaarinhayaa PhD of Education Cabela University waxaan deganahay magaaladan Boston maaragtay waxaan ahay xiriiriyaha ururka haweenka ogaadeenya ee waddanka Mareykanka marka dee halgankaana waa halgan Soomaaliyeed intaasaan xogaa isbarashadii waa mahadsan tahay Safiya Allah yabaarik Allah karaamay Allah ku sharfo waxaan jeclaan lahaa marka koowaad taariikhda dhulka maqan ee Soomaaliyeed dabcan iyo bal dagaaladan u dhaxeeya Oromada iyo Soomaalida inaad xogaa aad noo yariftiimisin horta inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun waan ka taxseenhayaa dadka Soomaaliyeed oo aad iyo aadka loogu xasuuqay dhulkoodii iyo deegaankoodii oo iyadoo ay iska kaashanhayaan maamulka Oromada Tigreega xaqiiqadii shacabka Oromada warbaahinta Oromada intuba arrintaas waa isu kaashadeen xasuuqa dadka Soomaaliyeed waana wax laga xumaado oo nasiib darro ah xitaa warbaahinta Oromada oo mucaaradka iska dhigi jidhay inay Tigreega ku tahay way ku qanacsan tahay xasuuqa dadka Soomaaliyeed aad bayna waxay isugu ekeeyaan in ayagu victim yihiin oo liyu booliis baa la laayay sheekadaasna mar hore ahayd hadda waxa la xasuuqayo waa shacabka Soomaaliyeed waxaase nasiib darro ah inaan arkaynay warbaahinta Soomaalidu aad ay uga hadlaysay xasuuqii muslimiin looga sameynayay Asia mana lihi waa wax lagu farxeeyo maxaa looga hadli waaye laakiin banaanbaxii ay Baytul Qudus u sameynayeen of course waxaasoo dhan dabcan waa muslim dhibaataysan laakiin muslimkii kula dhashay oo walaalkood ahaa oo maanta gobolka Oromiya siday u xasuuqayso tobanaan kun baa meel ku xaraysan oo hadba intii la raba laga leynhayaa oo laga xasuuqayaa shalay kaliya 300 ka badan baa isku meel meydkooda la dhiga waana wax laga murugooda inaan warbaahinta Soomaalidu soo qaadin haddaba dadkaasi ma ahan dad la dhahi jiray ONF bay taageerayaal u yihiin Soomaalidu warbaahinteedu waxay ka baqaan gobolkaas ONF bu taageero yahay in la dhaho ma ahan waa dadkii masaakiina oo hubka laga dhigay oo maleeshiyada liyu booliis iyo cabdi ilay iyo wixii la mid ah TPLF ay awal hubka ka dhigtay midiya iyo faasas baa dadka lagu leeyahay dad hubaysan ma ahan mana ahan deegaanada dadka lagu xasuuqayo deegaanada ONF laga taageero hadday Soomaalidu ka baqayaan waa wax aad iyo aad looga murugoodo oo nasiib darro ah waa runtii aad iyo aad waa wax nasiib darro ah Soomaalidu kulley dee waxaad moodaa inaynan waa run saas sheegtay Safiya inaynu ka murugoono walaalaheena kale islaamka laakiin se intaynaan islaam kala gaadhin inagii oo isku dad ah isku luuqada isku sinjiya isku ummada inaynu arki kari weyno ama warbaahinteenu ay ka baqdo inay soo hadal qaado saas sheegtayba dadka xitaa aan joogin deegaanadii laga taageeri jiray ONLF ee sinjiga Soomaaliyeed loo leenayo waa wax aad iyo aad nasiib darro ah oo aad iyo aad aan uga xumahay waxaan jeclaan lahaa Safiya bal horta intaynaan su'aalo fara badan oo halkan insha Allah tacaala ka weydiin doono oo ku saabsan arrimaha Soomaali galbeed iyo ogaadeeniya iyo dabcan de magacaas oo ogaadeeniya dadka qaar qoloba si u aragto bal horta marka koobaad taariikhda dhulka maqan ee Soomaaliyeed iyo dagaaladii u dhaxeeyay maxay haytay taawan ka gudbinay garhalaha marka hore taariikh qoban oo ku saabsan Soomaali galbeed ama ogaadeeniya sida Ingiriisku Ethiopia u siiyay inaad nooga yara taariikhda bal noo yariftimis horta taariikhdaas hadda caruur maaragtay dadka in xasuusin iyo lagu sameeyo ma aha iyo dhalinyarada dadka Soomaalidu waaweyn waa maaragtay wax arin ay ka dharagsan yihiin waayo qof Soomaaliya iskuul ku soo dhigtay oo aan taariikhdaas soo dhiganin ma jiro ama daada iskuulka Soomaaliya ku gaaray
soomaaliya waa ummad aada u nasiib badan ilaahay siiyey dhul hiba maaragtay mucjiso ilaahay siiyey nibco bannaanka mid taal iyo mid gudaha u taalba ilaahay ku abuuray meeshii adduunka ugu muhiimsanayd oo gacankii adduunkao dhan maaragtay miisaanka adduunka siyaasaddiisa miisaan culus ku leh meel ilaahay siiyey khayraad maaragtay nuucyo kala badan leh haddana ilaahay ka dhigay dad actifa oo tayo leh oo dadnimo leh hadda waxaan ka hadlayaa waa taariikhdeenii kuwa hadda jooga ma ka hadlahayo awowayaasheen waxay ahaayeen dad sharaf leh gumaysigii afrika yimid maadaama gobolkaasi gobol muhiim ah oo meel istaraatiijiga ku yaalay muhiim ah gobol kasta gumaysigii yimid mid kasta inuu qayb ka qaato oo maaragtay kontaroolkaas gacanka cadbeed iyo badweynta hindiya badda casba wuu isku dayey taasana waxay dhashay in naloo qaybshay 5 qaybood faransiis iyo ingiriis iyo talyaaniba ay maaragtay mid kastaba uu meel maaragtay goob uga qaado kontaroolka dhulkaas uga yeesho Abyssinia Ethiopia haddaa maqashana dee waa Abyssinia markaad Ethiopia maqasho waxa weeye qaado ay Abyssinia wax ku cunto qaadadana qofka haystaa manaafacaadkeeda lehee maaragtay kan lagu cunahayo waxba ka dheefi mahaya isagu marka Abyssinia oo ahaa amxaarada iyo tigreega labaduba weligood ku tuugsan jiray inay maaragtay jasiirad islaama ku dhex yaalaan aan kumana gaarinin qiimo iyo waxay dadnimo iyagu leeyihiin laakiin maadaama ay yihiin wax mataqaanaa gumaysigu siduu rababa u adeegsan karo qaaradda afrika meeshaas loogu ilaashado si afrika horumarkeeda loo hor istaago horta dadku waa inay fahmaan taas Abyssinia inay saas tahay xarunta AAU-dana meesha waxaa loogu abuuray si afrika iyo wada inay horumar gaarto looga ilaaliyo kuwaa dhahaya waddanka Ethiopia lama gumaysanin waayo sabab loo gumaysta male ninkii caddaa markuu afrika yimid wuxuu raadinhayeen 3 fariimood bay ujeeday u yimaadeen midi waa resources oo waxay raadinhayeen khayraad midna waxa weeye meel strategic oo macnaha meel deegaan muhiimad oo siyaasadda wax uga tari kadhay raadinhayeen midda labaadna waxay ahayd diin bay fidinhayeen saddexdii midna Ethiopia looguma baahnayn oo ummad islaamahoo meesha la fidneeye looma ayadiiba already fidnaysnoo gaale ahayd midda labaadna strategic location ma lahayn oo dad meel ku oodan oo aan bad lahayn bay ahaayeen midda labaadna khayraad ma lahayn oo wax khayraad ah oo dhulkoodu leeyahay ma jirto haba yaraatee dad meel isaga ooran beerahaas kaliya samaysta xadaarad darrana qarnigii 21aad hilibka ceerinka cuna dad noocaas ay ahaayeen marka baahi gumaysigu ma aha inay Abyssinia xoog iyo awood gumaysiga isaga celisay laakiin gumaysigu uma baahnayn waayo wax muhiimaha oo ay lahayd ma lahan annaga laakiin gumaysigu wuxuu u caddaatay dadka awoyaasheen dad ilbaxnimo leh dad karti leh dad isla weyn dad aan la gumaysan karin oo la yasi karin bay ahaayeen sidaa daraaddeed khayraad iyo nibco iyo dhul weynna haysta in dadkaasayto si kale markii loo kala googoyn waayey ayaa waxaa loo kala jarjaray gobolladaas si maadaama la arkay dadkan dad dhiig iyo dhalasho dhaqan lagu kala kaxayn kara inay yihiin ayaa xadadkaas la abuuray tusaale cadaawadda loo qabay waxaan kuu siinayaa ingiriisku 3 gobol buu gumaystay 3 gobol hal maamul kama samaynin 3 gobol oo kala xiran buu ka dhigay inkastoo isku wada xuduud isku xiran yihiin haddana 3 buu kala qaybshay waxaasoo dhan waxay ka mid tahay qorshihii jarjaridda ummadda Soomaaliyeed oo gumaysigu waday arrintaas marka waxay ka suurageli weyday waa dadkii awoyaasheenaha oo Soomaaliyeed dad badan oo waxaan arkay aqoonyahano sheeganaya oo ku dooda Soomaalidu inay 60kii ka hor ummad jirta aysan ahayn ummad jirtaan ahayn maamul iyo dawlad ma lahayn dawlad waa lahayn systemka adduunku ilaa hadda weli daraasadeyntiisa way socotaa systemka dawladnimada waxa la dhaho
laakiin qof yar oo maskax yar oo kooban aha in wuxuu u yaqaanaa systemka dowladnimada inta reer galbeedku sida uu asagu dowladdiisa u rangareeyo ma aha system waa wax ka guda weyn ummadda soomaaliyeed qabiil qabiil bay u deganayd xuduuday wada lahayd haddana dowlad bay ahayd waayo maantay soomaaliga dir dhaba degan haddii la weeraro gaarisa iyo baydhabo soomaaliga degan waa usoo gurman jira waana taariikhdana waa lagu hayaa dhulkaas dagaaladii badnaayo qowmiyadan hadda oromada ah oo maanta iyadoo tigre iyo balaayo dhan taageeraysa dadka iyaga ka faa'iidaysanaysa leyntooda dagaaladii ay isla geli jireen sidaa darteed ummadda soomaaliyeed ummad isku xiran bay ahayd waxaa kaloo jira dagaalada qabiiladoo dadka dhex mara of course bini aadamku markay meelkooda nool yihiin isku dhac baa imaan haya carab iyo ilkaa isudho ayaguna way isqaynaan waa kuwa dhaha soomaalida marka dagaal laba qabiil dhex mara haddii abaari dhacdo oo qabiilna dhinac roobkoodu ka da'o dagaalka waa la joojin jira waana gobonimada soomaalida sababta oo ay tahay waxay ahayd gunnimo in colaad xididasiib ah ummadda soomaaliyeed kama dhexaynin dagaalka laftigooda soomaalidu isdirirta laftigiisaa gobonnimo lahaa oo waxaa jiray wax la yidhaahdo birimageyda macnaheedu maxay tahay afka soomaaliga waa taqaanaa qofkaas yani uma qalmo weeye dadka aaban karin birimageydada waxaa ka mid a waayeelka oo dee dadka bulshada librarigeedii iyo aqoontii iyo xigmaddii haddaan waayeelkii maadaama aan la dilaynin waa sida maanta librariyadu meesha ay u taagan yihiinba waayeelkeenu taagnaa oo bulshadii haddaan librariyadooda la taabanaynin okay gabyaaga waa warbaahinta macnaheedu waxa weeye meel haddii weer lagu soo qaado aan warbaahintii laga taabanaynin waxaa jira ilmaha yar oo teenage-ka ahaa dumarka intaas waa waxyaalaha culummada ciwaanadaas far lama saari jirin ragga la dilahayaa markaa lasii kala qaadi jira oo dhallinyarada nin gabari dhashay iyo nin gabar qaba midna lama taaban jirin waxaan kaloo la taaban jirinin cidda ninka madaxda u ah oo odaga kaaba qabiilka iyo suldaanka iyo ah reeraha uu ka qabo hadduu reeraha la dilirahayo xidid leeyahay lama taaban jirin waxaa kaloo dhaqanka soomaalida ka mid ahaa marka la isdagaalahaya ariga lama dhici jirin waayo ariga reeraha xaaska ahaa ku nool ratiga reeruhu rartaanna layskama dhici jirin maxaad marka dareemaysaa ummaddaas colaadeedu xitaa ma ahayn colaad fog dad isku xanaaqay unbay ahaayeen oo mataqaanaa yacni inta okay waxaan kaloo la dili jirin qofka gacanta lagu qabto ilku miriglaa la dhihi jiray marka taas waxay muujinaysaa ummadda soomaaliyeed jacaylka iyo walaalnimada iyo waxa ka dhexeeyay inay wax aad u fog ahaayeen waxaana nasiib daraa dadka yidhaahda waxbaan baranay turjumaad aan dhuxo inay ka bixiyeen oo intii gumaysigu rabay inuu ummadda u sheego si khalad loo fahamsiiyo dhaqankooda iyo taariikhdooda bay sheegi jireen marka nasiib daradii ummadda sharaftaas lahayd oo taariikhdaas lahayd ayaa maanta waxaa gumaysi iyo caddaan iyo gaaloo dhan usoo oo loo garda duubay loo jarjarahayaa in abasiiniya afka loogu guro ayadoo la adeegsanayo maamuladan xunka ah oo dadka la kala googoynhayo maadaama ummadda iyadoo iswadata aan abasiiniya afka loo gelin karin googoyntan iyo soo jarjaridan iyo federaalka iyo waxa lagu sheegayo dhan broseskii ummadda etoobiya afkeeda loo gelin lahaa ka mid tahay waa mahadsantahay safiya aad iyo aad baad u mahadsantahay sidaa quruxda badan ee aad noogu sharaxday dabcan waynu insha allahu tacaala barnaamijka waynu sii wadan doonaa safiya sidaan la socono dhulka ay naga maqan ama dhulka maqan ee soomaaliya waxay ku dagaalantay inay soo ceshato dhulka sanadadii 1964kii khaasatanna 1977 bal dadka u iftiimi guushii beriga ay gaadhay jabhaddii Soomaali galbeed iyo dawladdii Soomaaliya horta dhulka maqan wax badan baa lagu dagaalamo dee ilaa Axmed Gurey qarnigii 15aad ahaa ilaa qarnigii 16aad sax dagaalku weligaan anaga iyo abasiina dagaalkeenu weliga wuu taagnaa lixdan ayadaana soo weerartay Soomaalidu ma weerarin ayadoo ay ku taagan tahay abasiiniya dawladda Soomaaliyeed oo urdanka ah oo dhalatay inay ka gaarsiiso
ayay weerarka u soo qaaday midda kale jamhaddan baa jidhay nasrullaahi la dhihi jiray oo dhulka ka dagaalamaysay markasta abasiiniya qorsheedu wuxuu ahaa inay abuurto masawir ah waxa dhulka isku dagaalku iyo meesha dhibta wuxuu u dhexeeyaa waa dowlad soomaaliyeed iyo dowlad abasiiniya oo dhul isku haysta si ay meesha uga saarto ummad xornimo doon ah oo dhulkeeda u dagaalamaysa marka saasay waxyaalaha ay soomaaliya u daandaansanaysa usoo weeraraysa ka mid ahayd laakiin kii hor dagaalku kii wuu ka horreeyey hadda WSLF ama Soomaali galbeed jamhadda xoreynta Soomaali galbeed ayaa dagaalamaysay oo gudaha ka dagaalamaysay dhulka badankiisana qaab jamhadeynaha lagu xoreeyay laakiin kii dowladda Soomaaliya soo gashay xaqiiqda dadka jamhaddaas dowladda Soomaaliya taageeraysay oo aasaaskeeda iyo qayb ka lahayd ujeedaduna waxay ahayd dee hadafka dhulka in la xoreeyo ah laakiin xoogaa dowladdii Soomaaliyeed waxaa ka qalloocatay siyaasaddii oo markay iyadoo dowlad Soomaaliyeed ah soo istaagtay waxay u sahashay cadowgeedii oo Itoobiya ah hadafkii iyo wixii ay awal faafin jirtay oo ahayd Soomaaliya dhul nagu haysata iyo dad oo meesha ka saartay dad baa xornimo doon ah marka taasay nasiib darray noqotay adduunkana waxay ahayd maaragtay guusha waxay ugu fiicnaan lahayd oo ku caga dhigan lahayd haddii aysan dowladda Soomaaliyeed si official ah ciidamadeeda iyo taangiyadeeda iyo diyaaradaheeda aysan u soo gelin laakiin ay taageeradeedii u wadi lahayd guul bay noqon lahayd marka wax dhibaato ahna ma ahayna laakiin siyaasaddii dowladdii inay si toos ah muuqato u dagaalantay oo laga yaabo in loo arkay dee ay in maaragtay si sahalaha lagu soo qaadi karo military waana lagu guulaystay laakiin cadowgiibay waxay siisay chance ay maaragtay adduunkii kaga raariday in dowlad Soomaaliyeed qabsanayso cabdisaaq xaaji xuseen allahu naxariistee oo nin wadani ahaa ayaa la wareysanayay maalin baa waxaa la weydiiyey ma kula ahayd baa la yidhi waqtigaasi waqti wanaagsan oo in Itoobiya la weeraraa waqtigu ugu fiicnaayoo la weeraray ahayd buu yidhi waayo ayadii boqortooyadiina way dhacday kuwii kaloo kacaanka ahaa oo militariga ahaana weli ma caga dhiganin dowladda Soomaaliyeed xoog bay lahayd buu yidhi marka wuxuu yidhi haddiiba waqti la weerarayo waqtigu ugu fiicnaa bay ahayd si fiican aad waa mahadsan tahay Safiyo dhulkii ay Soomaali soo ceshatay haddana sababay in Itoobiya dib u qaato yaase ka caawiyay arrinta in ay Itoobiya dib u qabsato dhulka Soomaaliyeed oo la socono in 77 xitaa dagaalkii dhulka ay Soomaaliya markay soo gashay dowladdii Soomaaliya ee hogaaminayay Maxamed Saad Barre Allahu naxariistee Soomaaliya dhulkeedii gacanta ku dhigtay maxaa haddana sababay inay amxaaro dhulkii dib u soo ceshato yaase ka caawiyay horta dhulka amxaara dib uma soo ceshanay adduunka waxaa jiray laba quwadood oo dee Warsa iyo NATO la yiraahdo quwaddii Warsa oo Ruushku hogaaminayay oo dhan baa dagaalka soo gashay ciidamo Kuubaan iyo koonfurta Yemen iyo Liibiya iyo Jarmalka bari iyo Ruush ba isugu jiraan la keenay wasiirka arrimaha dibadda wasiirka gaashaandhigga Ruushka oo la wareysanaya wuxuu yiri weligayo meel Russia ka baxsan buu yiri operation inta la eegmaanaan aadin sab waqtigaas ka hor si kasta ugu siinana buu yiri ma dhici kadeen Itoobiya inay ciidamada Soomaalida soo riixdo xooga ay lahaayeen marka wuxuu yiri markaan arrintaas Mareykankuna waana waxaa la yidhi taariikhda dagaalkii qaboobaa oo Ruushya Mareykanka u dhexeeyay adduunka halka mar baa la yidhi oo siyaasadda adduunka isku boos ka istaageen oo isku raaceen waxay ahayd arrinta in la soo jabiyo Soomaaliya marka Soomaaliya garabna maysan helinin Ruush iyo Mareykan iyo Warsiya Naytana waa u United waa isku raacsanaayeen in Soomaaliya la soo jabiyo si fiican saas baa ciidamada Soomaalida loo soo jabiyay intaana su'aalo kale oo iyaguna dabcan barnaamijkeena in yar ku yara taxalluqaana ku weydiin bal waxaad nooga warantaa waa maxay caqabadaha hortaagan maanta jabhadda ONLF
kulli su'aalana dadka qaar halkaasay inagu soo weydiin doonaan kuwaana gadaal baan u dhiganayaa waa maxay safiya caqabadaha hortaagan jabhadda onolef horta jamhadda ONLF taariikhdeeda wax yar ugu soomaalida meesha ku jidha ugu noqdo jamhaddani magaceedaa cusube ujeedadeeda iyo hadafkeedu waa kii weligeed ay jamhadihii hore iyo soomaaliya oo dhan u dagaalamaysay marka magaca unbaa cusub oo Ogaden National Liberation Front baa kalmadaasaa cusube hadafka iyo dhaqanka iyo xornimo doonnimadu wax cusub maahe waa wixii Soomaali ku salaysnayd jamhaddani marka waxay samaysay dee adduunka qofku inuu markuu dagaal galaysid waa inaad qorshe aad meelo fara badan ka fiirisid samaysaa qorshahaagana waa inaad waqtiga gaaban iyo waqtiga fog iyo meelka ku qaymaysaa oo waxay samaysay qorshe iyo dadaal maaragtay baaritaan dhulka sidii loo xoreyn lahaa dhulkii isku daygii Soomaaliya oo dhan ahaa inay dawlad Soomaaliyeed toos inta u qabto ummadda Soomaali dhulkeeda xoog ku soo ceshato maadaama uu fashilmay ummaddii Soomaaliyeedna ay mataqaanaa iyada laftigeedii dagaal sokeeye ka bilowday oo Soomaalidii ay dhacday in qaybo ka mid ah cadowgii Itoobiya ay siyaasad darteedu aadeen lix dhalinyaro ah baa waxay u istaagtay inay mataqaanaa dee waxaa soo baxday xabaal iyo ninkeed loo kala tag baa Soomaalidu tiraahdaa in shacabka reer Ogaden iyo ayagu u istaageen go'aansadaan inay mataqaanaa aysan qadiyadii Soomaalinimo iyo xoreynta Soomaali galbeed aysan ku dhex baabi'in Soomaalida kursiga isku dagaalaysa sidaa darteed baa jamhadda loo aasaasay okay jamhadda Soomaali galbeed maadaama magacii Soomaali galbeed ay wadatay Itoobiya markasta waxay adduunka ilaa waxaa lahaa sadar muuqdaa su'aal ka dhane ay ku guulaysatay inay ka raarido inuu Soomaali galbeed macnaheedu ay tahay Soomaaliya oo dhulus ballaarsi raadinaysa Soomaali galbeed waa Soomaaliya dhinaceeda galbeed ilaa markaad hadhow Ingiriis ku jirto Western Somali Liberation Front aad tiraahdo dee waa xoreynta gobolka Soomaali galbeed markaas waxay noqonaysaa Soomaaliya qararadeeda galbeedkeeda Itoobiya markasta waxay turjumaadii ahayd inay Soomaali dhul ka raadsanayso oo iyadu qof dulmanaa ay isu egto ayay arrintaasi caawimaad u noqotay laakiin Ogaden markaad tiraahdo oo gumaysigu dhulka u baxshay qof kastoo caqligaaga isticmaalo maapka Itoobiya saa u fiiri Ogaden gobolka Ogaden baa ku qoran markii Ogaden National Liberation Front loo bixiyay waxaa meesha ka abuurmaysa magac macnihiisa wata oo ah gobolka laga hadlayo ilaa adduunkii baa la rabaa inuu muujinayo gobolkii inuu yahay gobol Itoobiya maapkeeda ku jira horta macnihii taasuu muujinaysaa oo turjumaan u tahay magacu macnaha uu xambaarsan yahay xaqiiqo halgamayaashu way ogaayeen in Soomaali fara badan dhihi doonto ma Soomaali galbeed noqotaan sida kuwa hadda 21 hadda wali soo qorqorahaya ma Soomaali galbeed la dhaho laakiin su'aashu waxay Soomaali kaliya dhulka ma xoreyn karo laakiin adduunyo baa loo baahan yahay adduunka inuu ku siyaasad adduunkii ka gadmi ka dhalo horta maadaama muhiim ah laakiin qofka Soomaaliga oo xorta ah waxba iyo oo aan islama weyn karaa sidaa darteed baa horta magaca lagu qaatay oo magaca baahidaas loo qabay ma ahan magac qabiil loo qaatay laakiin magacu deegaan buu muujinayaa sideedana magac macnihiisu wuxuu muujiyaa waa calaamad deegaan iyo meel gobol baan deganahay Massachusetts baa lahaa Massachusetts waa qabiil cali baysteena okay waan la soconaa Iowa waxaasoo dhan waa gobollo martay cali baysteenka qabiiladoodii ka mid ah Tennessee qabiil cali baysteen oo Jericho la dhaho jifa ka mid ah Tennessee la dhahaa waxaasoo dhan marka Soomaalida horta ogaadeen waxay u dhibsanayaan waa aqoonta ay inuu ogaadeen qabiil yahay garanayaan gobolladaasba waa kuwa ayagoo degan kama dacwoonayaan masha Allah mana arkaysid Soomaali ku dhahay anigu Tennessee waxaan uga guuray qabiilkaas magacooda ma rabo inaan qaato laakiin dee nasiibta aqoonta ay yaqaanaan darteed bay ogaadeen wax dooda iyo su'aasha uga keenayaan laakiin waa iska nasiib darro
وما سنتها صفية إن يرهدان الواقع قدر صدام مركو هربا مقعن إن سومالدو ودباتدا وكو كانوا waxa ka dambeeyay sidaan anagu qabo aqligayga magacan horta qabiil waa run oo Soomaalidu markii ogaadeen iyo maqlaan waxay ogyihiin in qabiil Soomaaliyeed ogaadeen leedahay saas uga qabaan laakiin waxay halmaansan yihiin oo aad moodaa inay lewsan yihiin magacan ogaadeen iyo inaanay ogaadeen ku meesha u bixin ee guumeystay cadaaya Ingiriisku meesha u bixiyay si maanta waxa qabadan taagan ee qofka Soomaaliga war magacan ogaadeen baa ay meesha u timaado dabcan taa ku dheedo waa qodob oo Ingiriisku waxa uu ka sii fikiriyay waxa uu meesha uu rabay inuu awr mariyo irbad uu ku dayaa marka hore waa mashaakilka imikaba waxaan la yiraahdo magacan nagaga tagay waqooyiga Somaliland baa noo deesaga sameeyay waxa oo arrimaha qaar aad oo maasan tahay Safia hal su'aal baan rabaa iyaduna inaan ku weydiiyo intaan mawduuceena aan insha Allah ta'ala oo nasi guda gali doonaa maxaa dareentan markaad maqashid xubin kamida ONLF ee jabhada ONLF ee xaqdarka oo laga dhiibay Hargeysa Garowe Gaalkacyo dabcan xitaa Muqdisho Dhuusamareeb dhulkii Soomaalida maxaa dareentan laba arrimood waa dareemaa si fiican waa mar calool xumo iyo murugo waa dareemaa oo ah sida maaragtay garab la'aanta oo aan nafaysa midda labaadna waxaan dareemaa murugo kale oo ah heerka bahdilka ummadda Soomaaliyeed uu gaaray waayo qofka Soomaaliga ah oo qabiil ahaantiisa xor u ahaa damiirkiisa uma ogolaan karo ama xornimo u dirir ha ahaado ama yuusan ahaan qof kale oo qabiil Soomaaliyeed in laga dhex qabsado gunnimo marka Soomaalida la iscaynayana waxa la jiray gabadhiisu guur ma laho magantiisa ma barin karo marka horta gunnimo waxa ugu filan qofka in la dhaho qof baa inta laga dhex qabsaday baa cadowgiisii kala dhex baxa xitaa waxaa gunnimo ahaan jiray qabiilada isdirirahaya nin ka mid ah reer marti intuu u noqdo in maaragtay laga dhex qaato oo in adeerka intuu ka dhex qaato uu dilay taasaa gunnimo ahaan jiray waaba cadowgii iyo tigreegii iyo wakiiladii tigreegu inay ka dhex qaataanna dee waaba gunnimaatii kasii weyneed laakiin ummadda Soomaaliyeed nasiib darro waxay tahay gumaysigu markuu ummadu yimaado inaan ku gumaystaan rabaa kuma gumaysto ee process buu soo mariyaa iyo horumar baan wadaa iyo waxbaan beeraan falahayaa iyo halkaan baan rabaa inaan iskuulla ka dhisiyo wax uu sheegaa ummadda Soomaaliyeed gunnimada toos looma soo arnaa gunnimada waxaa loo soo marsiiyay waxa la yiraahdo maamul goboleed iyo siyaasi waayo to be honest maanta to burca lagama qaateen ama nin habar jecel ama nin habar yoonis nin ogaadeena lagama dhex qaateen laakiin maamulkii Somaliland baa dhiibahaya marka la yiraahdo asagu maamul baa arrinta sameeyay buu arkaa ee hadduu dareemi lahaa inuu ma taqaanaa waan garanaysaa abwaankii ka gabihayo reer Somaliland muxuu ahaa hebel boon ninkan maguuraan bahalka riwaayadda jira magaysa ku sheegi jiray war waa tareenka magaciisa dabcan in yar wigeera maqan yahay waa nimankan adeer maaragtay dhahaya ka sheekeynaya gabayga kaga hadlahaya marka waxa Soomaaliga oo qabiilkiisii xitaa u taagan arrintaa ma aqbali kareen laakiin waxaa naloo marsiiyay maamul goboleedka waxaa naloo ku sameeyay wax alla wixii aan qabiilku aqbali kareen oo dhan oo dulli ahaa oo qofka Soomaalinimadiisa iyo qabiilnimadiisa ku diidi lahaa maamul goboleedka soo qaaday oo marsiiyay in gabar Hargeysa laga qaado umula oo isbitaal ku jidhay ilmaheedii laga reebo ayadiina la dhiibo ayadoo laga dhigayo ilmaheedu waa reer Hargeysa ayadana la dhiibo gunnimadaas qof qaadan lahaa ma jira haddii qabiil dadka loola dhaqmi lahaa laakiin maamul baa sameeyay oo la soo marsiiyay طبعا سيف عن بعض إن يران كاره كلام تقول تذكر كاره كابون حرسوان وانين كلام بون حرسوان قرننا وانين كلام يسوقنا قوليها الرواية هن دمبيم كهرجيسة تي في جن طبعا يعني قرن كما تي في كهرجيسة أيو كهلا هذا يشر
qof baa halkaa wuxuu igu soo qorayay sababta sababihiina waa adigaasoo waxaan rabaa bal inaad aad u sii sharaxdidba sababta waa saas sheegtay oo dee qabiil lagama dhex qaadan lahayn oo saas sheegtay burc oo kale dadka dega waa la yaqaanaa dee isaaq bay u badan yihiin majoritigoodu haba sii kala ahaadaan jife hoose nin u martiya oo walaalkeedoo soomaaliyeed oo ogaadeenna dabcan ama ogaadeen oo qudhama maba oran karnaba oo onolaf ogaadeen qudha maba haba lagama dhex qaadan lahayn laakiin sidaad u sheegtay waxaan waa maamuladan loo sameeyay baa u sababa adaa ku haystay iga raali ahaw hore u sii soco Safiya walaal ogaadeen kaliya maaha amba ogaadeen maaha waa tan kuu sheegay gobanimo waxaan rabaa bal halka xitaa dad badan baa gadaal inooga yimi oo odhanaya Safiya su'aasha haddana mar labaad baan ku weydiinaya onolaf aaminsan ba inay gebigooduba ogaadeen yihiin waxaan rabaa bal inaad cabaar ku aan yara dul istaagtid waa dad kaloo mar dambe inoo yimi baa jiro na daawanaya okay dadkaas waxaan anigu mareexaan iyo habargidir baa iska kay dhalay maasha Allah gobanimo gobolka galgaduud baan ka soo jeedaa hooyada iyo aabahay iyo odagayguba waa labadaas cid marka maasha Allah marka intaas ku qancay waa gobanimo sax oona la ogaadeen kaliya maaha waa Soomaali intii damiirkooda Soomaalinimada u noolayd baa isugu tagtay waxayna u dagaalamahayaan xornimada dhulka Soomaaliyeed oo gumaysiga Abasiiniya wali haysto maasha Allah Soomaaliga wali damiirkiisu nool yahay oo alaf kamid ka ahina caabud anigana kuma badbaadi karo hubiyana kuma badbaadi karo hooyadii aabahay ka soo kala jeeda waa run marka ma ahan ogaadeen kaliya ma ahan waa qofkii marba haddii damiirkaagii Soomaalinimada wadanimadaadu nooshahay dulmanaad ku tahay Soomaaliya maasha Allah marka yaana runta laga leexleexanin ma ahan laakiin example-ka tusaalaha waxaan u soo qaaday marka dhahayay nin ogaadeen Hargeysa iyo Burco lagama dhiibeen ayadoo loo soo macnaha yani hadda Soomaaliland ba maamulkaas sameeyaa dareensan tahay laakiin markuu qofku og yahay ceebtu inay habar jecel iyo habar yoonis habar awal ku dhacayso dadku way dagaalami lahaayeen hadda abaho ka xumaaday waa jiraan oo dagaalamay laakiin waxaan ka muhiimadu gumaysigu si uu noo bahdilo annaga naloo jarjaro Abasiiniya caloosheeda naloo ku guro maamul goboleedyaa naloo soo maray siyaasi tuugaha naloo soo maraya waayo ummadda Soomaaliyeed wax kasta oo ayaga iska dhaxeeya inaysan kala go'in waa la ogaaday waa run marka sidaas weeye marka jamhaddu istaraatiijiga ay samaysatay wuxuu ahaa inuu halganka sidaas siyaasadaas magacaasna taariikhiga ahaa oo dukumentiga ahaa oo warqadihii gumaysigu ku bixiyay ku qoran oo dhulkii ku qoran la isticmaalo midda labaad waxa kaloo jamhadda og yihiin asaasayaasheeda qofka Soomaaliga oo xorta ah oo naftiisa xor ah oo maskaxdiisa iyo naftiisa u madaxa bannaan magaca ogaadeen la dhahaa dib uma arko waayo amba waa ikan tusaalaan kuu siinaya marka laakiin Soomaaliga asagu Ethiopia iyo Abasiiniya u duloobay haddii jifadiisa loo bixiyana waa ka cararhaya marka waa maasantay Safiya halkaas aabeen ku arkayna in kastoo malaade ciyaar yihiin oo aan oran karin qofka maskaxdiisa dhan halka mid baa imka waxay noogu soo qorayaan dhulka Ethiopia leeyahay ka hadlin oo war Ethiopia dhulkeena caadiga ah waa haystaa Ethiopian adaaba oo ogolaaday ee gumaystaasi oo de waa halkaas dareenkii iyo aqligii Soomaalidu Safiya uu maraya kuwa waa dadka dambe dabcan oo de niyadu qofku markay ka dhimato iyo qabka way hankii Soomaaliyeed iyo qabkii Soomaaliyeed baa meesha ka baxay waxaad arkaysaa wasaad horeba u sheegtay Soomaalidu waxay lahayn jirtay dad barimageeda oo sida salaadiinta oo kale oo had iyo jeer dhaqanada ku adag oo aan siyaasadda ku dhex milmin oo dhaqanka iyo wanaagga Soomaaliyeed maantana inta badan majority-ga gobol kastoo Soomaaliyeed ninkii suldaanka ahaa ama malaaq ha noqdo ama ism ha noqdo ama suldaan ha noqdo ama boqor ha noqdo ama garaad ha noqdo waxa uu u xidhan yahay oo u shaqeeyaa ninka siyaasiga ah ninka hadal hayn ama cunsuriga ama danaystaha ee ummadda kala dilay kaasuu isaguna wuxuu sii noqdayba inuu ka sii hoos maraba ninkii la doonayay inuu dhaqanka wax ku badbaadiyo oo Soomaali dhibaatooyin fara badan ayna ku dhacay okay intaanan programka ayaan dib ugu soo noqon doonaa insha Allah ta'ala Safiya burburkii Soomaaliya kadib waa maxay guulaha ay gaadhay jabhadda onolef maxay yihiin ma nooga sheegi kartaa burburkii Soomaaliya kadib guulaha ay gaadheen jabhadda onolef horta absalaano waxa jiray program aan qoray la yiraahdo heerarka halganka maaragtay oo aad
safiya adigoo raaliya weliba in yar codkaaga mar baad moodaa inuu hoos u yara tegayo haye hadda seeye waa si fiican maasha allah gobonimo horta waxaa jiray program aan qoray oo la yidhaahdo heerarka halganka oo aan kaga sheekaynhayay guulaha iyo heerarka ONLF programkaasna waxaan kasoo turjumay nin lay Maraykan ahaa oo Bill Mayer la dhihi jiray oo ahaan jiray dadka u dhaqdhaqaaqa maaragtay xuquuqda maaragtay civil rights-ka Maraykanka ayaa wuxuu qoray buug la yiraahdo barnaamij la yiraahdo MAP macnaheedu movement action plan oo uu leeyahay calaamad heerarka halgamada guuleysta maraa marka heerarkaas baan waxaan ku turjumay halganka ONLF ninka marka buugga qoray wuxuu leeyahay haddaa rabta halgankaagu inuu halgan guuleystay inaad yahay aad ogaatid fiiri inuu calaamadahan maray marka halgankan horta calaamadahaas oo dhan wuu maray hergamada guuleysta tusaalena waxaan uga soo qaadahayaa guusha ay ONLF gaartay tusaale yar midda ay Soomaali oo dhan jiritaankeeda ilaahay ka soko aan dhahayo maanta ONLF baa sabab u ah ilaahay baana mahad u sugnaatay laakiin qof kastoo Soomaali aan xasuusinayo waxay tahay ogaadaya cilmi baaris lagu sameeyay waxay sheegaysaa Kuwait iyo Sacuudi oo la isku daray inay ka batrool badan tahay gaaska dabiiciga ah oo ogaadaya ku jirana Afrika oo dhan inuu baahideeda dabooli karo nin Abyssinia ayadoo faqri ah oo tuugsata oo ciidamadeeda noogu soo diraysa hadda inay dhaqaale ku hesho ayay Soomaali maskaxda ka qabsatay ilaahay baan idinku dhaarshay ma Abyssinia oo maanta batrool la soo baxday ayaa Soomaali magaceedu sii jiri lahaa ninka batroolkaas ka hortaagan oo qoriga la hortaagan miyuusan ilaahay ka soo jiritaanka Soomaaliya soo sabab ahayn ma wuxuu wadaa waan dhowr jeer baan aniga qudheedu ka hadlay ONLF wax dadku waxay u haystaan wax iska yara dhow shidaalka aad sheegtay ee ka badan ka Kuwait iyo Iraq ba ku jira waxa ka hortaagan Ethiopia inay qodato oo inagana gibigeedaba ina wada xasuuqdaba qoliyeena Soomaaliya ee maamul goboleedada waa afarta inan ee ONLF ee horaan uga hadlay ee Soomaalidu inay dhahdaan waa ogaadeen iyo in jir bay leeyihiin iyo waxyaabo noocaas oo in la isxaqiro waa Soomaalidu say isu xaqiraysay ay dadnimadoodii iyo raganimadoodii baa meeshaba ka baxday ba sidii la isu xaqirayay la isu xaasidiyay waa xaqiraad iyo xaas anu waxaan qabaa xitaa maamulkan Somaliland ee dhiiba anoo Cabdisalaam waxaan ogahay in mashaakil fara badan oo maanta dhibtan ay ku hayaan mid kale oo ka sii badan oo dhulka Hargeysa burco ay kula wareeg lahayn ay ka gudbantay jabhada ONLF hadaan jir lahayn jabhada halka ka buufinaysa kala dagaalamaysa inay mar horeba Hargeysa burcaba la wareeg baraayeen oran lahayn waa magaalooyinkii waxa kale oo jirta xaqiiqo ah Soomaalida xasuusinaya bangiga adduunka iyo shirkadihii Chinaha ahaa oo maalgelinayay batroolka in la soo saaro waxa garab socday barnaamij bangiga adduunku maalgelinayo oo qorshaha batroolka marka la soo saaro dib u dejin loogu sameyn lahaa 30 milyan oo Itoobiya ah oo dhulka isku ciriiriday in inta laga soo raro waad arki kartaan Maxamed Cabdi Yaasiin Diiran oo ka sheekaynaya in inta 30 milyan laga soo raro dhulka Amxaarada iyo Tigreega iyo Itoobiya la soo dejiyo gobolka Ogaadenya hadda 30 milyan waa inta qorshuhu dib u dejinta ah inta ayadu iska soo guuri lahayd ilaahay baa idinku dhashay 30 milyan waa numberka ugu yaraa oo ay qorsheeyeen kaba soo qaad 60 milyan oo Soomaaliya iyo Ogaadenya soo degtay magac Soomaaliya xagee ku jiri lahaa soo bad aleer ku dhacday Soomaalidu ma noqoteen laakiin nasiib darro ma fahamsiisna halkan waxa la isoo qorayaa magaar bay isu taagahayaan mase Soomaalidu ku soo darsamahaya horta arrintaasi waa arrin waqti dheer in laga hadlo laakiin waxaan idin sheegayaa Soomaalida xasuusinaya hal qof oo jamhadda ONLF lama kulmin oo aaminsan in ONLF gaarisu taagto in Ogaadenya gaarisu taagto waxaan kaloo Soomaalida xasuusinayaa Soomaaliga cabdi ilay oo calanka Itoobiya huwan oo jigjiga ka dhaantaynaya iyo Soomaaliga xamar laga dhiibahayo oo harag shabeelka noqday farqiga ay isku khilaafsan yihiin waa midna Soomaalinimadii buu u dhimanayaa midna Soomaalinimadu ka tanasula
marka ogaada waxa oo aan horta u dhimanaysa waa Soomaalinimada calankeeduna wakaasayo dhexda waka uga jira waa calankii Soomaaliya Soomaaliya dhexda waxa uga jira waa calankii Soomaaliya sidaa daradeed waxaan kala Soomaalida xasuusinayaa gobolka Texas waagiisii hore Mexico ahaan jira Mareykan asagoo dawlad weyn ah inta gobolka soo goostay sidii Mareykan kuma soo darsan sidii dawladii Soomaaliya 77kii rabtay oo kale ma sameeynin wuxuu sameeyay dadkii xornimada u dagaalamay oo taageeray xornimadoodii bay qaateen gooni bay isu taageen waa la aqoonsaday kadib dadkii Texas baa cod bixin sameeyay waxay u codeeyeen inay gaar u taagnaadaan iyo inay Ameerika ku biiraan waxay u codeeyeen inay Ameerika ku biiraan sidaas ay Ameerika uga soo mid noqdeen sidaa daradeed haddii dawladda Soomaaliya dagaalkii 77 jamhadda sida oo analaf oo kale u dagaalami lahayd kadib dhulku markuu xoroobo talaabada ku xigtaa markaas ay imaan lahayd inay Soomaaliya ku soo biiraan sida daradeed arrintaasi inay Soomaaliya ku soo biirayaan inay ku soo biiraan wax hadda laga hadli karo ma ahan gobanimo aad ma santahay kulli waxaas wax imika qorshaha ugu jira oo la ka hadlana waa fikir aan anigu leeyahay ma aha codkii jamhadda hal la ogaado ما شاء الله عادي أدوار ما صنتها ما أنا أرجع نيجي بهذا أنا لا في كلين ونقاينا أو تمام القارة ونقول نعمل دولة قارة إلا هذا ما هي إنه يدخل تعرف الله صدقنا هل سؤال أخرى ربعنا الكويتية طبعا وتطفر بدنها كائن وقص قريان صفية استاذ ورقة نما سياسيين ويمكا صوماليا مقدشة بريان كو أورليا أما أنت بدن تارجت كودو يهي أديكو كلي أما صعدين عدتها هاي عاو حبين كميدا أونلف oo ah xiriiriyaha guud ee haweenka USA ama dunidaba ee onolaf arrinka qalbi dhagax in badan baynu dabcan waynu cambaaraynay waynu ka hadalnay balse niman baa imika inta badan soo qaata siyaasiyiina sidaad u aragtaa dadkan inta badan ku dhaliila dawladda hal dumiyada dawladda Soomaaliya arrinkii qalbi dhagax daraadii oo laga ka dhigtay baltaana waxaan rabaa inaad xogaan u yareeftimis horta su'aashu waxay tahay dadka qalbi dhagax dawladda hal la dumiyo taargetka uga dhigtay qalbi dhagax iyo oo aan asxaan ma u hayaan waa maya ma sha Allah siyaasi Soomaaliyeed halka inta soo istaago oo aan baan taageersanahay dhihi karaan miyuu jira no baarlamaanka hadda baaritaankii ay soo sameeyeen jamhadda oo aan argagixisan maaha ay dhaheen luuqadda isticmaalahayeen buu arki karaa qof kasta ma ay dhihin jamhaddu waa xaqdir ma dhihin waxay dhaheen adduunku uma aqoonsana argagixiso sababta pointiga ay isticmaaleen waa adduunku uma aqoonsana macnaheedu waxay tahay siyaasiga Soomaaliyeed waa xaniya siibaya mana laha raganimo uu ONF ku taageero sidaa daradeed kan qalbi dhagax taageerahaya iyo kii dhiibay labaduba ONF midna waji uma hayo lagaba yaabee kii dhiibay inuu girti dareemahayo oo dambiga ONF ka galay marka kuwan ka soo horjeeda oo hadda qalbi dhagax ka dhigan haya istiraashada ka dhigan hayana qalbi dhagaxna dan kama leh Soomaalinimana dan kama leh ONFna dan kama lahan laakiin wuxuu u arkay maadaama shacabkii Soomaaliyeed dareenkoodu toosay oo Itoobiya la nacay oo laga siyaasiga ay dabada ku wada talanay sidaa daradeed ayay waxay ka dhigeen u aateen ul waxay dhaheen ay macnaha inay dawladda ku garaacaan bay ka dhigteen aad iyo aad baa maasan tahay aniguna tabtaas uun baan qabaa runtii oo fikirkaasaan kula qabaa waayo waxba kuma sii fogaanayo hadday onolaf ay ka dhab yihiin iyo qalbi dhagax dee waxay saas sheegtay intii halkaa soo istaagaan bay odhan lahayn onolaf waa xaqu dir waanu taageersanahay laakiinse wuxuuna warkaa oo niman damac lah oo doonayo inay xukuumaddan maanta meesha ku dumiyaan food saarana kasii dhiganaya qalbi dhagax iyagii saxaafadaha taageeraba waayo waxay samaysteen social media saxaafaday ku leeyihiin saxaafada kalena way leeyihiin anigu waanu sugnahay aniguna kudhayda waanu xogaa dhimana safiya isu taga ururada mucaaradka Itoobiya ka soo horjeeda ay onolafna ku jirto waa maxay dabcan maxay ka faa'iidaa maxay kale yihiin bal dadka noo macnee maxay se onolaf ay arrinka ka faa'iidaa iyagana faa'iido ugu jira ururada faraha badan ee ka soo horjeeda dawladda Itoobiya
horta waxa weeye Soomaaliya awal dhibaatada ummadda Soomaaliya haysan jirtay waxay ahayd annagu Soomaali baan ahay xornimaan rabnaa halkaas aan gaarkeena u dagaalami jirnay sidaa hadda sanad kasta iyo waqti kasta Itoobiya isbedel markuu ka dhaco Itoobiya dawlad noqoto oo la soo dhisay baan hir cusub oo Itoobiya ahaan la dagaalami jirnay صح waayo waligeen meeshii Itoobiya iyo mustaqbalkeeda lagu go'aaminayo ma aanan fariisan mana aanan tagin Eritrea way go'day waayo ayadaa ciidamadeeda Arsaba qabtay ayadaa markaas qorshihii iyo barnaamijkii ay ku go'day soo samaysatay sidaas daraadeed ONLF waxay diiday sheekadii ay Itoobiyaanku wadeen oo ahayd inay dhahaan jamhadaas Soomaaliyeed oo halkaa ka soo duushay oo Soomaaliyeed oo Itoobiya fadqalale iyo kala goys ka wada magaceeda ogaadeen oo ay qaadataan horta asaaska ah waayo hadda magaca ooda haddii es lagu bedeli lahaa waxaa soo bixaa Somali National Liberation Front Somali National Liberation Front muxuu Somali National Movement SNM Somali United Congress USC iyo Somali Patriotic Movement SPM kaga duwan yahay kama duwanaadeen laakiin magacaas ogaadeen kaba horta ka duway hal la ogaado oo gobolada Itoobiya ay ka tirsan oo maabkeeda inay wakiil u yihiin muujiyay waa talaabada koobaad midda labaad oo waxay ku guuleysatay maadaama Itoobiya wax karma ah oo Abasiiniya marka Amxaariya Tigray laga reebo inta kale dad lagu soo daray sideena loogu daray ay tahay oo waxay ku guuleysatay inay wax fahamsiiso ururadii kale oo dhan fahamsiiso inay ayagaba Itoobiya sidaas loo maaragtay qabsaday arrintii ay wacyigelin u samayso tiibaana waxay dhashay maanta gobol kasta oo Itoobiya gumaysatay inuu xornimadiisa u dagaalamayo ururka la wada samaystayna dastuur baa loo qoray dastuurkiisana waxaa ka mid ah maalinta Tigray la rido in cod bixin laga qaado qoomiyadii Itoobiya sii joogaysa iyo tii ka tagaysa sidaa daraadeed ONLF waxay la timid qorshe iyo barnaamij ay ku guul daraysateen dawlado waaweyn iyo Soomaalidii ka horeysay iyo dhaqdhaqaaqyadii jamhadda ka horeeyayba inay fahmaan insha Allah kana wuxuu noqon doonaa dadaalkii ugu dambeeyay oo loo galo xornimada ogaadeen waayo xornimadii baa ku imaanaysa Ilaahay idankiisa waan maasan tahay Safiya ilaa muddo dhowr sano ah intii uu kacdoonku ka bilaabmay dhinaca Oromada maamulka maqaarsaarka ah ee Jijjiga waxay iyo lii boolisku Soomaalidu weeraraan Oromada maxay u weeraraan maamulku Tigray baa samaystay صح maamulka Jigjiga iyo kan Hargeysa iyo wuxuu dhan Tigray baa samaystay aan runta isu sheegno ما شاء الله صح dhawata waxaad ka hadlaysay jaamac Dubad markii dadka lagu xasuuqay maamulka Jigjiga iyo maamulka Hargeysa waa wada shirahayeen heebtiisii noqota kan Jigjiga weeye waayo darajuu ka sareeyaa Soomaalida Itoobiyaanku darajooyinka u sameeyeen darajada Soomaaliga la guuleystaa ugu sareeya Soomaalida kale waayo Soomaalida gudnimada waa la soo gelin hayaa marka sidaa daraadeed waad u jeeday jaamac Dubad shirkii ay wasiiradii afarta ahay oo loo diray u tagay muxuu yiri dambiga idinka ahaa luuqaduhu soo siiyay waarun waxa wuxuu ku dhiiran kari waayay wasiirkii markaa maamulka Hargeysa wuxuu ku dhiiran kari waayay xitaa inuu cambaaray iyadoo dadkoodii yihiin oo ehelkoodii yihiin wuxuu yiri anagu dadka dagaalana maana odhan sidana maanaan odhan ilaa imikana waxaan hubaa dadka inaan xeer iyo xaal midna toona marin xaq lama siin xitaa cambaarantu waa halkan dhow waxbaba maamulka Jijigana Cabdiirina waxaaba ku eeday inay jabaad hayaan oo iyaguna dagaalamayeenba wadaba dadkii masaakiinta masaajidka loo galay okay marka waxa dabada ka riixayo waxa weeyaan waa niman Tigrayga ayaa samaystay oo shaqeeyaan laakiin dadka inay ogaadaan Soomaaliya dadkii jaamac eheladooda jaamac Dubad lagu laayay siyaasiyiinta safaaradaha Itoobiya ka dacwoonahaya iyo siyaasiyiinta fiyada ka hadlahaya oo ogaadeen baa nalaysay oo anaf baa nalaysay dhahaya oo afka kala baqahaya Itoobiya nalaysay inay macnaha ka xoroobaan soo looma baahna Soomaaligaasi oo ogaado sida kaliya oo si toos ah u cambaaraysa uga hadashay ka documenti garaysay waa ONLF waa xaqiiq international community gana u gudbisay dadka la xasuuqay
dacwada ay gudbiyaan cabdi inay ka sameeyeen dacwo maaha laakiin etoobiya inay mas-uuliyaddeeda leedahay bay ugu qoran tahay ONF baana ka dacwootay arrintaa ka dooday marka ha ogaadeen dadkaas jaamacaddu badegane waxa u gubanhaya oo ay maanta ku xisaabtami karaan waa ONF iyo dadka Soomaaliyeed oo xuduudaha lagu laayo dhan aad oo maasan tahay Safiya dhammaan xasuuqii ka dhacay tuulada Hadaaya qaadka lagu beero waxa lagu xasuuqay Soomaali waxaana xasuuqay Oromo maxay Oromadu u xasuuqday Soomaalida waa imika xasuuqan dambe hadaanan khaldanayn tuulada lagu magacaabo Hadaaya ee ka tirsan gobolka waxay ka tirsan tahay waan filayaa in yar yar raaleeyahay gobolka Hararga inay ka tirsan tahay umaleynaya Hadaaya qaadka lagu beero waxa lagu xasuuqay Soomaali okay gobolkaas ay ka tirsan tahay laakiin dadka lagu leeyahay Harar ay u dhowdahay dabcan waxaana lagu leeyahay dad Soomaaliya maxaa Oromaanka ku xasuuqday dadka Soomaalida maxay Oromadu u xasuuqday Soomaalida Oromada Soomaalida waxa xasuuqday Soomaalida waxa loo arkay lama ooyaan bay noqotay sax Tigreeguna wuxuu isku dayayaa kacdoonka Oromada oo ardayba ku sii socda inuu soo jeediyo sidaa daraadeed asaguba cabdi ilaygeena oo kale oo Oromaha jira haye kaasaa marka wuxuu sameeynayaa barnaamijka aan wada shacabka Oromadana waxa loo tusaaleeyay Soomaalida dad ku soo dhulkooda qaadan haya marka sidaad maamulka cabdi ilay oo kale baa Oromaduba leeyihiin maamulka cabdi ilay oo kale kooyiguna Tigreega u shaqeeyo bay ay leeyihiin Oromadu kan jooga oo maaragtay halkan wax ka horinaya way jiraan halkan dad ayaan ma ka hadashid Puntland iyo dadkay dhiibtay anigu waaba sheegay maamul goboleedyada oo dhan kulligood waa dhiibeen February warbixin uu sheegayay Maxamed Cabdi Yaasiin Diirane wuxuu ku sheegay waxay ahayd lambarku ilaa waa sii kordhayay dadkan markasta waa la dhiibay Somaliland 170 qof baa laga dhiibay waa February bisha labaad 10 bilood baa ka dambeysay Soomaa hadda Somaliland numberka laga dhiibay wuxuu ahaa 170 oo ana lafta Puntland wuxuu ahaa 704 gobolada dhaxana wuxuu ahaa 59 magaalada Muqdishona markaas 3 bay ahaayeen xubnaha laga dhiibay waqtiga Cabdullaahi Yuusuf la dhiibay oo xubin golo dhaxa ahayd xamar iyo Kismaayana waxa lagu dibay 7 mas'uul oo ana lafa halkaan yar noogu soo celi aniga qudheeda waxba iga yar dhaafay waxaan jeclaan lahaa bal inta inaad noogu soo celisid tirada ilaa February laga dhiibay Hargeysa Garowe gobolka February intii ka horeysay February ka horeysay numberku wuxuu ahaa Somaliland 770 Puntland 704 gobolada dhexe 59 xamar dawladda dhexe waxay dhiibtay 3 xubnood oo mid xubin golaha dhexe yahay waqtiga Cabdullaahi Yuusuf aan la dhiibay sax Kismaayo iyo xamar waxa lagu dilay 7 marka intaas ahayd bishii February waan mahadsan tahay Safiya dabcan khadkuna waxaan moodaa dhinacaaga in codkaaga waan maqlayaa laakiin dhaqdhaqaaq qiimeyn jirin haysay hadda aniga xagee maadaama codkaaga aniga waad iska soo noqon doontaa insha Allah ta'ala dhimo laha saa ugu jira haba ka bixinba sax buu iska noqon doonaa hadii Ilaahay nagu simo ugu dambeyn Safiya ma maqlaysaa gobonimo waa soo noqotay dabcan in yar dhinacaaga khadku xagga uu ka yar culus yahay mooshi ma waxba hagaajiye hadda ما شاء الله هذا كل دقائق إن يربى تشوش يربى كبير جرا لكن سه والله بارك يا هذا دقائق ما شاء الله وقدام بين هذا واحد شردت سومالية ده ده دكان ورمضة تولد الليلة هذا تولد الليلة بريرة
ee u dhow magaalada Herar Soomaalida halkaa degan 35 reer baa waa la xasuuqay 35 qoysana loo warbixinadan ku helayno oramadaana xasuuqday ilaa 12,000 oo qofna naftooda uga baqayaan in la laayo arrintaas sidee u dhacday dadka u sharax xaalku halku maanta iyo halka xaalka uu hadda marayo horta dadku waxa weeye waa dad hubka laga dhigay oo dadka Soomaalida hubka waa laga dhigay maamuladan Tigreega oo meelaha ka samaystay ama kan Cabdi Ilay ama kan Oromada baa hubka laga dhigay waxa laga dhigay dad marka faramaran weeye dadka hadda sawiradooda aragteen seefo iyo faasas baa lagu laayay marka dadka waa la xareeyay waa la soo arushay nin la wareysanayay oo dadka hadlayay wuxuu yiri maxaa meel isugu keenay suu yiri ammaankiinaan la sugayaa baa nala ku yiri buu dhahaa si fiican marka wuxuu yiri waa naloo yimid dadkii oo faramaran faasas iyo nala kala daaray 300 baa marka wuxuu yiri meed yaalla صح dhaawaca meeqaa la yiri 30 buu yiri maxay muujinaysaa marka dadka in la dhiibtirahay hadii dhaawacu 30 kaliya yahay dhimashaduna 300 gaadhay marka dadka weeye saasa loo leenayaa loo xasuuqayaa maaragtay de waa dad maaragtay cadawgooda u jabayaan hiil iyo meelna ka haysanin aad baad u mahadsantahay Safiya su'aal kale bay bulshadu inta badan inay weydiinaysaa oo aan rabo balna halka aan yar dul istaagtid aqoonyahan Safiya dadkuna qolobo mar dambe imanaysaa waxay moodayaan qabiilka ogaadeen bayna tahay Safiya maaha waa xubin kamid ah onalef dabcan qabiilada xun ee qabiilku dib ma jirto marixaan iyo waxa iska dhalay habar gidir waa qof dumar oo marixaan ilaa odaygeeda haddana waa xubin kamid ah aniga cabdisalaam halkanka onolaf waan taageersanahay halkan saxaan oo arka ogaadeen nimi saana ula socda marka waxa su'aasha ay dadku aad ku weydiinayaan waxay tahay maxay ku diidan yihiin Soomaali galbeed onolaf ma diidana Soomaali galbeed laakiin shuruucda caalamiga ah markaad horta cabdisalaam adiga haddaan inta maanta ku imaado aan ku dhaho cabdisalaam haddaan shira ku bixiyo ka waraneeda ma dhibaad leedahay maxaa u diidaysaa shira ka war deemay shira cabdisalaam baa ku xaabahay oo halkaas magacaygo shira meel kasta cabdisalaam baa kugu qornayd ha mana taalo baahi cabdisalaam inta laga bedelo magac kale waxaagii oo dhan dib ha loo bedelo magacaan ogaadeen gumaysi baa baxshay dukumeenti baa jira lagu doodayo taariikhaha jira dhulka warqado lagu baxshay baa jira cadeymaa jira lagu doodayo dhulku inuu dhul Soomaaliyeed yahay sidaa daraadeed in maaragtay hadeertaan ma abuuri kadid waa adduunyo cusub inaa abuurtid haddaa tiraa Soomaali galbeed aan la baxo dowladdii Soomaaliyeed Soomaali galbeed la baxday ayadiyo dowladaha xoog lahayna waxba ku keeni weyda laakiin magaca dukumentiga oo dhulka ku qoran waa sidaas waa ogaadeenya waxaanan jeclaan lahaa insha Allahu inaan maalin idin fayd gareeyo xubno waaweyn oo madaxdaas oo aan alafa oo aan xitaa ogaadeenna ahayn daaroodna ahayn madaxda oo anafna kamid ah marka dadkan maaragtay bannaankay taagan yihiin Ethiopia amay ku aragtaa bay leeyihiin kalmada iska soo tuurtuurahayaan dadka Soomaalidaahi ogaadeenya in loo baxsho magaca dacwo kama qabaan dib uma arkaan xaqiiqadu waxay tahay Ethiopian caabudidii baa waxay la gashay inaysan toos u qiran karin oo dhihi karinin waan ka baqaynaa inaan oo anaf taageerno Ethiopian ka baqaynaa marka waxay abuurahayaan cudurdaar ay mataqaanaa halgankii ceeba ugu yeelaan qofka halkaas soo qoray riyaal xamid ogaadeen miya ma ahan ogaadeen waa nin Ciise halkaasoo Ciise dhalaan uu dhahaa mana khariyo Safiya yariga halaha waxaan rabaa halka taariikhda oo adiguna runtii si baad u dhigtay halo assalaamu calaykum macalinkayga oo runtii aan markii horena barnaamijkan intaan bilaabay waxa laga yaabaa inaan yaray ilaaway ay gar halahaado waa macalinkayga aqoonyahan aadan jaamac kaahin oo taariikhyahana oo arrimaha dhaqaalaha iyo taariikhda runtii aan isaga uu marjaci yahay runtii waxaan jeclaan lahaa aqoonyahan aadan jaamac kaahin
in aad taariikhdii dhulka maqan ee Soomaali galbeed ama ogaadeen iyo la bixiyay iyo sidii uu Ingiriisku u bixiyay inaad xoogaa adaguna aad bal noo yara halka noo yara sharaxay adigoo raaliya codkiisa xoog loo maqlayaa insha Allah adaan ugu soo celin doonaa insha Allah haye waa soo karhayaa si fiican baan anaguna waan kaa guddoonay salaan sharaf marka hore waxaan salaamayaa dhammaan dadka daawanaya ee ku jira halkan dhammaantoodba marka labaadna waxaan salaamayaa walaashay aqoonyahan safiyo oo aqoon aqoonyahan runtii kala tirsan ururka qawaalaaf aad iyo aad baan salaamayaa waxaan dhegeysanayay runtii barnaamijka absalaan oo si fiican baa u weydiin adiga iyo safiyo runtii ما شاء الله هذه أكبر لكم هذا النقية سيد في عام قرح بدنا أودين قبل وحن هذا بعض ما عندنا يا صفية سيد ولا سن نقول في مسي أنا وحن الله يقال الصومال وحيد هاي ومد الصومال مثل يعني بريو هره لكن وحن الله يقال خد الصومال إذا عايز سبعين قميصتو سيدك الصومال إذا أوكل قيبيان وأقود الغيرات صح بس وحوي وإنجرو عن كوريسي مدة ونقول واجب أنا إيو حرضا فيبا إن الرمان نوعاس كهذا ومد الصومالي يقيمه وعن كهذا النوع ستحوي أنا إيه كيمانتا وحيدقين إنك سؤالي عن برعو أوريجينال عن كل شيء بدون سكري الكي قارك من واحد دقيقة كان شامل دقيقة صفيح قارك من واحد دقيقة نجيل دقيقة الضوء الصومالي ذي كل واحد دقيقة حاجة دقيقة دقيقة حبور دقيقة بيرد من دقيقة صفر الميركي أنا يصير ما هدي حر نويسي إني مسكين أو راقي أو حدود بين الاسمية وحاجة الله حدي أنا عن كعرو ومركا أنا حرب أنا كان ما قانو نجي يصير ما يرتبط ورسوي تصميم الجودان تذكر شيء يو معناها جود حرية يقين اللي راح يصير هاي يستفي عن اللوبة هاي إن ولا كان الدرمان مسكين كان الله قرب كانوا سوى مسلم يسنين اللي جويستو الديون الوقت الحاضر كودوا البحر المقاطي وقوي إنجليزي كقاتين كونفرتران كقاتين توتي فرنسي كقاتين كون كله إلهي إلهي أمو سود التنين إن لو عرروهم كبيست مدوا وحكمه ويسوي كلام بعد ما تيجي واجي مركز في ورمسيا إن دتك عن إلا حريص لكوا يجنو ولا ليه إن عندنا كتير من ستة صامت هدي أنا كسر بسؤال شيء لو تسعة عبدان وعظم أصلا بعوي وعلص عنا كنيس بقولي فري سيتنج كي هاي مركي نقول لك بارين نقول لك شركي هو قيبسنا أفريقيا كلها شكل واحد نوع عندنا يصير أفريقيا لو قيبسنا لها دولة إثيوبيا هي دولة بركاسي عن جوبيس تشوين ومركها وحكم جري بقول كيلو يقام من الأخ بقول كم من الأخ مركاسي وحسد فيه كفر وقت سي إنجليز كفر سوا هي خطك هذا خطك لوكس ولا هذا صومر اللي يقرأنا مركا من اللي يكون نكا كاشناي وحمركا أي كبير رأسا على بعض لوكاسي إن الصيام مركا تعرف صباحين لكن هذا عن هذا حقاق laga yaabaa in codku ka go'go'ayaba kulli codka inaga yara go'ay aqoon-yahan Safiyana way noo soo yara noqon doontaa insha Allah ta'ala sidoo la wada soconaba walaalayaal waa taariikh iska cad dadka qaar shanta Soomaaliyeed waa magacii raadkii gumaystoon raacno ayuu lagu soo celiyay shan Soomaaliyeed ma jirno gumaystaan ka dhigay sidaa inoo sheegay dabcan aqoonyahanku inoo sheegayo dadka la khaldana maskaxdooda
ay aad iyo aad u liidato waxaan arkayay aqoon-yahan dabcan halkaas laga daawanaysa iga raale oo khadka waxaad moodaa inuu dhinacan ama dhinacayga ama dhinacaaga uu ka yaro cuslaaday caqliga ilaahay ha inoo barakeeyo ummadda soomaaliyeed ilaahay garaadkooda iyo maskaxdooda ha u soo celiyo ha fahmaan in shantan soomaaliyeed iyo waxan waa sidaa aqoon-yahanku inoo sheegay aan ilaahay u qorin inagu maadaama oo qolyaheennan kale xoogaa yaraa inkastoo innagaba gobolladeeni cadaadis badan saarayin oo amxaaradeed maanta siyaasadna hoosgeeyeen in iyagana lagu ilaawo guumaysta etoobiyana oo midow in lagu ilaawo lagaba hadli waaya taasuna waa dulinimada soomaali haysata garaadkii soomaalina dee halkaasuu marayaa oo maanta ilaa shalayta waxaan daawanayay nin social mediaha runtii ka hadli jiray oo halkaas social mediaha cashara ka jeedin jiray waxba isaga casharadiisa ku noqon maayo xalay baan daawanayay barnaamijkii ku qabanayay hargeysa dabcan su'aalaha aan la yaabanaa waxaa ka mid ah oo rag dhalinyaro ah oo aan ku tuhmayey aqoon iyo garasho iyo weliba tacab fara badan la geliyey oo maamooyin ama hooyooyin xitaa suuqa tamaandooyin wax ku iibiyaa ay wax soo bareen halo kana mid ahaa aan rajaynayna inay yihiin dadkii dee maanta bedeli lahaa odayaashan dhulkii nagu haysta ee ka shaqeeya cuqubada iyo isku darka soomaaliya kala fogeynteeda ayaa su-aalahan aad iyo aad ula yaabay waxaa ka mid a oo ay weydiinayeen dabcasarow mana aqoonsan doontaa iyo markaad maraykanka tagtid doorashadeeda ma ka hadli doontaa mana dabcasar de ma un-kii waa waxyaabahan la yaabay halo hayo aadan dhinacaagu kolley caawa khadku yar ka yar cuslaanaya safiyana kolley way nagu soo noqonaysaa marka adigoo soo koobaya aadan bal taariikhdan goortuu ingiriisku meesha siiyey waxaweye dhulka loo yaqaano somaali ogadan ingiriisku yaqaanaan waxaa ingiriisku ay u seexeen milix 1890 markii uu maleeq dalbaday oo uu yidhi dadkan cawaanka ee meesha ku degan dhinacan soomaalida anigu waxaan xaq u leeyahay in layga siiyo qaar ka mid ah ayaa markaa 1890 baa loo seexay dhulkaas soomaalida loo yaqaano loo yaqaano in la siiyo laakiin wuxuu dhaqan galay 1941 markaasoo ingiriisku 3 baltanyan oo ciidan ah oo Ethiopiana oo waxa loo yaqaan Abasiiniya ama Xabashida loo tababaray si dhulkaasi baaxadda u qabsan waxa kale oo ingiriisku waqtigaasi tababaray 1941 uu tababaro furay oo ka dayay ingiriiska khubaraha oo dawladaha hoose iyo sida maamulka magaalooyinka la qabsanayo u maamula kaas waxa 1941 ay dhaqan gashay markaasi dhulka Soomaaliya ogaadeen ama Soomaali galbeed in si fiican buuxda oo qacanta ugu dhigo xabashida markaasi ay dawladda ka riixayaan dawladda ingiriisku waxaa jiray dhul ka maqan oo intaas ka duwanaa oo loo yaqaan reserve area ama dhulka loo yaqaan hawdka kaasi oo ku dheeraran dhul badan oo isla sabaaxad oo ka mid tahay magaalada gaashaama ka mid ah wax ka mid ah yaxbuur baa ka mid ah waxa ka mid ah meesha loo yaqaano jijiga intaas oo dhan baa ka mid ah dhul badan oo u dhaxeeya ay qalbi daaray waxa soo dhulka noocaas markaasi 1954 ayaa lagu wareejiyey dhulkaas isaga Itoobiyaanka sidaas leeg ayuu ingiriisku tababar u sameeyey ciidamada bataliyanista oo meesha taga isla markaana uu tababar gaara lagu sii adaba dadkii meelaha qaban lahaa intaa marka Soomaaliya xornimo qaadan dadkii waxay keeneen dad aan dawlad muctarif lahayn laakiin dad iska maamulaan dad maqalaha Suudaan ay xukumaan waqtigaasi way markaasi taariikhaha qabtay labada dhul ku sheegay waa maasantay aqoon aad baa maasantay safiya inoo soo noqotay allah ya baarik kolley gabagabadii baynu ku jirnaa aqoon safiya waxaan jeclaan lahaa dardaaranadaada ugu dambeeya hal su-aal oo kale oo iyadu yar ka yara baxsan qadiyadda Soomaali galbeed ama ogaadeynaya ayaan rabay bal inaan iyadana iyarkaa weydiiyo maadaama aad tahay qof u dooda xuquuqda walaalada Soomaaliyeed iyo wixii khalada iyo meel kastaba khalad ka jira waa su-aasheedaas waxay odhanaysaa in yar iga raali ahow sidaad u aragtaa dadka waqooyiga dabcan gobollada waqooyi gaar ahaan gobolka Togdheer iyo waqooyi galbeed dadka Soomaaliyeed oo dhibaato xukuumaddii dawladdii Maxamed Siyaad Barre ka tirsanaya balse bulshada Soomaaliyeed ay ku kala qaybsan yihiin oo qaar aanay arrinka ay oranayaan maya khaladka bay iyaga lahaa iyo arrimaha adigu noocaas lagu kala qaybsan yahay maxaad faale ka dhiibin karaysaa dadka waqooyiga Soomaaliya oo
dowladdii maxamed siyaad barre dhibaato ka tirsanaya haddaan su-aashay dul istaagana dadka qaarna mujtamaca soomaaliyeed ay arrinkaa ku kala qaybsan yihiin safiya codkaagii uu inaga waxaa iri dowladda ummadda soomaaliyeed dhibkay ku jirta ilaahay ha ka saaro horta aamiin hadda see maqlaysaa hadda imika si fiican baan ku maqlaynaa marka hore codkaagii waan maqli weynaa hadda si wanaagsan ku maqlaya ummadda soomaaliyeed dhibkay ku jirta ilaahay ha ka saaro dowlad aamiin 21 sano waddanka xukumaysay waxna waa bi'isay waxna waa hagaajisay hase ahaatee ummadda soomaalida gobonnimada ay ku faani jirtay waxaa ka mid ahaa samirka maasha allah hase ahaatee ummadduna markay cara ilaahay ku dhacdo dee ayaga dhexdoodaa la isku ciqaabaa ummadda reer waqooyi dhibaato badan baa loo geystay la iskuma hayo weliba kalsooni iyo niyaddii iyo walaalnimadii soomaalinimada ay keeneen maysan helinin qofka taas aan ka garaabaynina ma garan karo dee waa qof meel hoose fiirinhayo u arkay hadda dhibaatada snm geysata jabhad baa geysatay lama miisaan noqon karta dhibaatada dowlad soomaaliyeed geysatay marka hase ahaatee dadka reer waqooyiga hadday dhaqankoodii iyo qabiilkii iyo hogaamadii iyo sharaftii iyo asalka ay u lahaayeen meesha ooli lahayd oo siyaasiga etoobiya soo rakibtay ka madax bannaanaan lahaayeen ilaa waagaas ciid iyo colaad lama jiifeen wixii wax dhacay dowladdii samaysayba dhacda masiibay ahayd ummadda soomaaliyeed kuwa aan reer waqooyi ahayn oo qabiilu ahaa dowladdu leynaysa dadkan siyaasi ninbaa kursigiisa badbaadsan hayay haddaba ayadan somaliland dowlad noqonin bay qabiiladu waxyaalaha la arkay la isku sameeyaa meeshaan dowlad waa runta dadka dambi baa laga galay hase ahaatee su-aashu waxay tahay wixii cimriga iyagii baan ku dhammaysanaa saasaa naloo galay mise waa ka soconnaa oo ilaahay waa la iscafiyaa waana la noolaadaa oo ummadda iyada soomaaliyeed haddii aanan annagu iscafis iyo toobadkeen rabbi la imaanin annagoo dhan baa wada dumaynaa been buu sheegay qofka yidhaahda soomaalida koonfureed baa gaarku wixii ku dhacahayaan somalilandna waa badbaadaysaa maya soomaali isku meel bay ku dhimanaysaa ama waa wada guulaysanaysaa kuwaas oromadu haddaan laga hortagin oo la joojin oromadu kaga hari maysa meeshay joogaane hargeysay qabsanaysaa nagisidee waa run taasaan aniguna kula qabaa in wixii hore inta la iskaba ilaawo haddaanu jiri lahayn sidaas sheegtay siyaasi etoobiya ka shidaal qaataa waxaa soomaali way ka heshin lahayd oo meel la isugu iman lahaa dabcan soomaalidu dhaqan bay lahayd waxay lahayd isu tanaasul bay lahayd waxay lahayd laysu garaabi jiray laakiin in dadkii iminka maanta xitaa aan laysu garaabin anigu bulshada waxaan inta badan eedda waxaan saaraa siyaasiyiintu idhahdaa dee iyagaa ugu wacan nimankan maamulada inoo sameeyey baa ugu wacan bulshada soomaaliyeed inaanay isba saamixinba waayo had iyo jeer waxay soo fadhaan hadde aad iyo aad kelmad aan uga heli baa jira oo ninkan isna aanu saaxiibka nahay ee la yidhaahdo faysal abrone ayaa wuxuu u bixiyey kelmad odhanaysa nimankan had iyo jeer kusoo celiyo wixii hore dhacay madxafka xumaan kaydiyaha buu waa xumaan kaydiya waayo qofku waxa wanaagsan dunida wax kastaaba way ka dhacaan in wixii inta hore looga socdo aan bartii la taagnaan oo hore loo sii socdo safiya waa gebagabadii bal dardaarankaaga ugu dambeeya iyo maxaad ku soo gabagabeynaysaa insha allahu tacaala barnaamijka horta ummadda soomaaliyeed dardaarankayga ilaahay baan u baryaynaa ilaahayna ha baryaan inuu ilaahay sharaftoodii usoo cesho iyo wadajirkoodii aamiin waxaan kaloo ugu jeedaa nimankan kuraas bay ku tartamahayaan nimankan siyaasiyiinta sheeganhayaa waxay bahdil bay qaabileen dullinimaday qaabileen waad la socotaan dullinimadoodu intay la eg tahay ayagoo colaha jigjiga la geeyaa markaasaa jigjiga waxa jooga nin kaloo dulli etoobiya wakiil u ah kaasay marka maadaama kaasi afhamxaariga ku hadlay amarka kasii qaadanhayaan war isulaynta etoobiya sharaf lagu gaari mahaye ee sharaftiina soo ceshada oo ilaahay ha loo toobad keeno oo ha la iscafiyo oo dhulka nibcadii adduunka oo dhan baan ku kor fadhinaaya yaanan ku kor baktiine
haddii aadnaan anagu sidaas soomaalinimadu aysan iscafin oo dowlad cagaha noo dhigata aanaan samaysan oo dowlad xoog leh oo wax badbaadin kardha aanaan yeelan waxay noqonaysaa sidaas annagoo ugu wada baktinayna in maalin inta la iska xaaqo Ethiopia bilowdo inay faqato Abyssinia inta aan taasi dhicin Soomaaliya hal iscafiyo dowladda noo dhisan hal la taageero ilaahay maaragtay ha laga boqo dambi dhaaf ha la weydiisto intaas baan kusoo gabagabayn lahaa walaalnimada iyo soomaalinimaduna ma aha wax dhammaan haya sidii rabaha loo kala jijiyo adduunkana rabbi baa iskale qolo rabbi ka xoog badan oo tala maamul samaysan ka dhaama jiro rabbiga maamulka sameeyay imtixaanka Soomaalida waqti buu ugu talagalay ilaahayna naxariistiisa waxaan ka rajaynaynaa inuu nasr degdeg ah siiyo ilaahay maaragtay intaas aan ugu soo gabagabayn hayaa aad iyo aad baad u mahadsantahay aqoon-yahan Safiya runtii qof baa in yar iga raali ah oo dhan maarig inaga soo garaa qofka ugu dambeeya koolka inaga soo halo salaamu calaykum walaal adigoo gabagabadii baad nala kulantay anagoo barnaamijka xidhayna barnaamijka ma la socota waad inaad la socotaan filaya waan la socdaa Safiyan aqoonyahanka waa barnaamijkeeda ku xiranahay koodhi waa dhageystay sax aniga koonfur dhashay baan ahay soo waxa karata ma gobonimo laakiin waxa weeye qadar ilaahay miyaan la aqoonsaneyn cabtaan oo ilaahay ku weydiiyey qadarta ilaahay waa la aqoonsan yahay wada qadarka lixda imaamkii ka mid tahay lixda imaamkii ka mid tahay qofku muslimba ma aha haddaanu qadarta aaminsanayn baan qabaa haddii ka waran Ethiopia iyo aan la hoosgeynin oo aan taraan bisha ila ka maamulin anaga cad ku noqon maxaa laabay waxba halaabi maayo mid inta la halaabi maayo wanaag ba aniga ilmahayga waa ila kala mana tagi karaa argeysa waqasama billahi waa amaana ka fudud ilmaha ku noolay kada huwa waa isdariya 7 jir xaatido aabood ka dhintay adeeradooda haysta mana awoodaya la istaago ilaahay baa iga sareeya cabdalaano dee walaal waa nasiib darro dowladda maxamsiyaad barokada kaan u sameeyay laakiin anigu waxaan aaminsanahay ku qabiil la maaha wax ka dambeeya ilaahay iimaanin anu shakhsiyan waxaan aaminsanahay marka runta ka hadlo ma sha Allah waad mahadsantahay war ku Ethiopia nabad ku noolana adaab ku nool wadiga arkaya qabiilkee doonaan ha aadaan meel lagu nabad qalma jirtay hadii la isku yimaado ka waran aan nabad ku noolaana wadankeena ku noqon dee shacabku way ogoliin inta badan gaala uga cabsanaya iyo diimo aan maxaa sameeyaa ma dadka la waa ila mid kulli wada ila mid ah aaminsanay waa run walaal aad iyo aad u mahadsantahay siyaasi baa Soomaali kale hor jooga shacabku way soo daari doonaan laakiin kan niyad joomayno insha Allah taala wala la siimo doona ka dawana wa ilaahay idin gargaara idin leeyahay aniga wallahi alazim aamin kulligeeda Allah inoo gargaaro salaam ya walaal shukran Allah ya barak Safiya waxaan maqlayaa waxaan filayaa inaad si fiican ii maqlaysid kulay muuqaalkaagu iga yar tagay oo muuqaalkaaga waan arkaa laakiin dhaqdhaqaaqi baa ka tagay waxaan filayaa adigana sidoo kale codkaaga bas baan maqlayaa okay mushkilad ma jirto aad iyo aad baan kuu salaamayaa waan iska soo gabagabaynaynaa maxaa la isu raaciyay sidar darwiishkii muxuu yiri war dalkaba idinka leh ma dawladu noqotaan waa sayidkii gabayadiisa bay ku jirtay intana asaastaan dalkaba inay nagu xukumaan bay ahayd nimanka maanta maamul goboleedyada noo sameeyay waa nasiib darro Absalan maadaama aan soo kama horeyso inuu hankaagu gaaro inaad Soomaaliya oo dhan xukumi kadib taasaa ka horeysa absolutely waa qodob xukumi kadib oo ka guuleysan kadib oo iska dhicin kadib soo kama horeyso waa xaqiiq waa run marka taasaa ka maqan insha Allah aad baa u mahadsantahay guul iyo gobonnimo ummadda Soomaaliyeed ilaahay maaragtay wanaagoodii waxa isu yihiin ha tuso آمين قول يا قبنا هذا الضوء ما صنتها وحن كلام هذا علينا يا أخوي هذا نشامع كاين وإسنا برنامج كان قال قيب قاطي مركو هرنا برنامج كقيب كاها لما بشر صومالي هذا كان نقطع وانا يسا ميلا كسبن سيمبا وانيكا يد أخويها صفية ويدن كله في أمان الله هذا ما صنتي والسلام عليكم